الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى هانتين با خيارتا أن هودا صاحبها كنا هايو هالكن وامريك ميديا qodobada warkeena ugu door koran in caawa idinku haynana halkan waxaa ka mid ah shirka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedka oo la sheegayo inuu qabsoomi doono wajigii hore waji ka bedelan dalka Suudaan oo sheegay inaysan joojinaynin dagaalka inta ay gacanta ku dhigayaan gobolada kaga maqan dalkaas Itoobiya banaanbaxyo xoogan oo ka socda gobolkaasi Oromiya ee dalka Itoobiya oo la sheegayo in ay faraha ka sii baxayso maxaabiis ku xidhan dalkaas Itoobiya uu hormuud u yahay Jawaar Maxamed ayaa la sheegayaa in ay cuntadii ka soomeen muddo dhowr bari ah halkaasi waxaa la sheegayaa in caafimaad darro badan ka jirto dab weyn ayaa hadda qabsaday magaalada Jigjiga oo la sheegayo inuu ka kacay guryaha ka dambeeya jaalka dhexe ee magaalada maxkamadda ICJ oo diiday codsigii kaga yimid dalkaasi Kenya oo sheegtay in maxkamaddu ay ku dhici doonto waqtigeeda loogu talagalay beesha caalamka oo soo saartay digniin ku saabsan shirka 15 Febraayo ee lagu xalinayo mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed qodobadaas iyo qodobo kale oo dheeraad ah ee barnaamijkeena ku maqli doontaan haddii ay baraali ka noqdo isku soo noqod wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo dhawaan u baahayd markii dawladda Soomaaliya ee federaalka iyo golaha maamul goboleedyadu ay ku heshiin waayeen shirki ka dhacay magaaladaasi Dhuusamareeb balse waqtigan xaaliga waxaa la sheegayaa dawladda federaalka inay shir qabatay shirkaasina lagu ilaamiyay in maamul goboleedyadu ay guddi soo dirsadaan guddigaas oo ka kooban labo maamulkiiba iyo dawladda federaalka oo ku daraysa iyaduna laba xubin oo u matalaya dawladda federaalka shirkan ayaa la rajeynayaa in lagu qabto magaalada Baydhabo halkaasina lagu lafaguro sidii doorasho cadaalad ay uga dhici lahayd waddanka Soomaaliya dhanka kale dawladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay doorashada Soomaaliya ee dib u dhacday isqa qabsiga siyaasiyiinta Soomaaliyeed sidoo kale safaaradda dalka Mareykanka ayaa qoraal toos ah la wadaagtay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday waxaana ay u sheegeen in uu ka fiirsado tallaabooyinka uu qaadayo maadaama la rabo in la heshiisiyo isaga iyo maamul goboleedka waxay safaaraddu sheegtay beesha caalamku inay ku boorinayso dawladda Soomaaliya ee waqtigeed u dhamaaday inay qabato shir loo dhan yahay laguna xalinayo khilaafaadka u dhaxeeya labada dhinac ee siyaasiyiinta Soomaaliyeed sidoo kale beesha caalamku waxa ay sheegtay inay aad u soo dhaweynayaan qabashada shirkan dhici doona haddii ay baraali ka noqdo 15 bishan Febraayo beesha caalamka ayaa sheegay inay tahay jaaniskii ama waqtigii ugu dambeeyay ee la isu iman doono taasina ay dhowr weyn la muujiyaa laguna heshiiyaa qodobada hadda la isku hayo si doorashadu ay waddanka uga dhacdo beesha caalamka ayaa sheegay in dawladdu waqtigeedu u dhamaaday aysan mar kale isku dayin inay hakis geliso shirkani uusan dib u dhicin labada dhinacba maamul goboleedka iyo dawladda federaalku sidoo kale maamul goboleedka Jubbaland dhawaan u baahayd markii ay ka cagajiideen ay soo saareen war-saxaafadeed ay ku sheegeen inaysan la fadhiisanin in dawladda federaalka ee Soomaaliya waqtigeedu dhamaaday ama ay gacanta ku soo celiso gobolkaasi Gado oo ka maqan maamulka Jubbaland maamulka Jubbaland ayaa ku adkaystay inay shuruud uga dhigay dawladda federaalka inay hor fadhiisan karaan oo kaliya marka ay ku dhawaaqday ogolaato in gobolka Gado uu qayb ka noqdo gobolkii uu horey uga tirsanaa ee ama maamulka horey uga tirsanaa ee Jubbaland taasi dawladda Soomaaliya ma aysan ka jawaabin balse waxay ku guda jirtaa in ay qaban qaabiso shirkii loo qaban lahaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed si loo gaadho ama xal waara looga gaadho khilaafaadka ka taagan siyaasiyiinta Soomaaliyeed shirkaasi oo la rajeynayo inuu ka qabsado magaalada Baydhabo balse arrintani ayaa hadal haynta ugu badan waxa ay tahay ma ay ka soo qayb gali doonaan maamulka Jubbaland maadaama ay shuruud ku xidheen shirkaasi in ay yimaadaan waxaana iyagana aan war sugan aan laga haynin maamulka Puntland oo laftirkoodu ka cagajiidaya in ay hor fadhiistaan mar kale xukuumadda waqtigeedu dhamaaday ee hormuud ku yahay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku siisimaha waqtigan xaaliga isagoo isdoortay dhanka kale sidaan horey ba idinku sheegay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ ayaa ku gacan sayrtay codsi ka yimid dalkaasi Kenya oo ay dooneysay in dib loogu dhigo waqtiga maxkamadda
arrintaasi ayaa ku noqotay dowladda Kenya filanwaa. waxa uu yidhi sargaalka u hadlay maxkamadani anigoo ixtiraamaya kiiska xadeynta badda Indian Ocean ee Soomaaliya iyo Kenya, codsiga Kenya oo ah hakinta waqtiga ama dib u dhigitaanka maxkamadda, waxaan u sheegayaa dalka Kenya in aysan daba maraynin waqtigii loogu talagalay oo ballanteedu ahayd 15 Maaj. arrintani ayaa waxa uu sheegay sargaalkan inaysan suurtagal ahayn mar kale maxkamadda si dib loogu dhigo, balse arrintani waxay farxad iyo reynreyn ku abuurtay dalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta waqtigoodu dhamaaday ee ku baaqay dhawaan in aan maxkamadani dib loo dhigi karin marnaba. dhanka kale dowladda Ethiopia haddii aan xaggeeda u leexano, Jawaar Maxamed ayaa la sheegayaa iyo maxaabiis uu ka mid yahay inay ka soomeen gebi ahaanba cuntada dhowrkii maalmood la soo dhaafay. mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga Oromian Federal Congress oo loo soo gaabiyo OFC ayaa walaac ka muujiyay xaaladda caafimaad ee Jawaar Maxamed iyo 3 qof oo la xiran oo kuwaasi oo ah mas-uuliyiinta ugu sarreeyay xisbiga mucaaradka ee dalkaasi Ethiopia. mas-uuliyiintani ayaa la sheegayaa inay gebi ahaanba ay ka soomeen cuntada, waxaana ay sheegeen inta isbeddel uu imanayo in aysan suurtogelin inay cunto cunaan. sida la sheegayo Maxamed Jawaar ayaa la sheegayaa hooyadii inay ku booqatay xabsiga balse uu garan waayay xanuun dartii iyo baahi ka muuqatay. sargaal u hadlay xisbiga mucaaradka oo la hadlay laanta BBC-da ayaa sheegay in arrintani uu caalamku farageliyo tallaabana laga qaado sida ugu dhaqsaha badan haddii la rabo in dalkan Ethiopia uu noqdo dal sii jira. waxaa la sheegayaa halkaasi maxaabiista diiday inaysan ahayn mas-uuliyiinta oo keliya ee balse kuwii la xidhnaa ee maxaabiista oo dhani intooda badani ay cuntada ka soomeen. dhanka kale dowladda Ethiopia oo caalamku ku boorinayo in ay joojiso gebi ahaanba dagaalka ka socda gobolka Tigray iyo cabrinta maxaabiista dadka u dagaalamaya ama gobonnimadoonka ee qowmiyadda Oromada ayaysan dowladda federaalki jawaab ka bixinin. dhanka kale banaanbaxyo xoogan ayaa ka socda gobolka Oromada oo ay ka wadaan halkaasi dhalinyarada iyo ardayda iskuuleyda oo isugu soo baxay muddooyinkii u dambeeyay maadaama ay la socdeen in maxaabiistu ay cuntada diideen, kuwaasi oo ku dhawaaqayay hadhaco Abiy iyo xukuumaddiisu ayaa waxaa lagu soo fasaxay magaalooyinkaasi gobolka Oromada ciidamada militariga oo loogu talagalay inay dadkaasi kala caydhiyaan, balse arrintaasi waxaa la sheegayaa in ciidamadu ay kontrooli waayeen iskuna guuleysan waayeen inay dadkaasi kala kaxeeyaan. banaanbaxyadan ayaa laga soo qaaday muuqaalo ku tusaya dadku iyo muuqaaladan ayaa banaanbaxayaashan ayaa la wadaagay muuqaalo ay iska duubeen baraha caalamka ee sida Facebook iyo Twitterka iyo baraha internetka ee caalamiga. dhanka kale haddaan eegno dagaalada ka socda gobolkaasi Tigray ayaa iyaguna la sheegayaa inay weli sii socdaan, halka ay dowladda federaalka Ethiopia ay dhawaan u sheegtay inay soo afjartay dagaalkaasi balse uu noqday waxba kama jiraan. dhanka kale waxaa lagu eedeynayaa halkaasi inay jiraan dagaaladaasi ay dowladda Eritrea qayb weyn ka tahay, dagaalkuna weli uu kasii socdo halkaasi gobolkaasi Tigray iyo Barakac. waxaa la sheegayaa dad badan oo rayid iyo shacab inay halkaasi ku qurwaayeen, kumanaana ay ku qaxeen dalkaasi Suudaan ee dariska la. colaadda u dhaxaysa dalka Ethiopia iyo Suudaan ayay dowladda Suudaani sheegatay inay joojin doonin dagaalka ilaa ay ka soo afjaraan gobolada kaga maqan dalkaasi Ethiopia, isagoo carabka ku adkeeyay inay suurtagal tahay isagoo carabka ku adkeeyay inaysan marnaba suurtagelaynin inay joojiyaan dagaalkani ilaa ay gacanta kusoo dhigayaan gobolada iyo magaalooyinka kaga maqan gobolkaasi axmaarada dalka Ethiopia. dagaaladani ayaa maalmihii u dambeeyay ka socday gobolkaasi Alfashaqa, waxaana la sheegayaa in magaalooyin iyo tuulooyin badan ay gacanta ku dhigeen dowladdaasi Suudaan, dad badan oo shacab u dhashay qowmiyadda axmaaraduna ay ka qaxeen goboladaasi. dhulkan la isku haysto ayaa la sheegayaa dowladda Suudaani inay sheegayso in uu yahay dhul kaga maqnaa dalkaasi Ethiopia oo ay xoog ku qabsatay dhowr iyo 20 sano ka hor. sidoo kale beesha caalamka ayaa ku boorinaysa in la joojiyo colaadda u dhaxaysa labada dal ee ka bilaabatay xuduudka iyo dhulka soodinta ee u dhaxeeya dalkaasi.
walow ay arrintaasi iska dhagatirayso dowladda suudaan gudahana u gashay dalkaasi etoobiya in ka badan 50 kilomitr. war degdeg oo nagaga imanaya dhankaas iyo deegaanka Soomaalida ayaa la sheegaya magaalada Jigjiga in dab aad u weyn uu ka kacay halkaasi. dabkani ayaa la sheegayaa inuu ka kacay xabsiga guryaha ku xiga xabsiga dhexe ee magaaladaasi Jigjiga. dabkani waxaa la sheegayaa inuu ku sii hulaaqayo xaafadaha ku dhow xabsiga dhexe iyo ilaa xabsiga dhexeba. waxaana la sheegayaa dabkani in uu u eg tahay inuu gacanta ka baxay oo ay adag tahay in la kontrolo ama la damiyo ilaa muddo. waqtigan xaaliga weli laguma guuleysanin waxaana socdaa dabkaas weli uu socdaa. dabdamiyaashuna waa ay dul wareegayaan iyagoo isku daya inay la tacaalaan dabkaasi intuusan qabsanin gudaha intuusan gelin gudaha xabsigaasi jeelka dhexe ee magaalada Jigjiga, walow uu galaaftay guryo badan oo ku xeeraa xabsigaasi. dalka Turkiga ayaa ku dhawaaqay inay sameeyeen markabkii ugu horeeyay duuliya wadin kadibna suurtagal tahay inuu quuso baddaasi iyo xeebaha dhaadheer. sargaal u hadlay ayaa sheegay in markabkani ulaq la yidhaahdo uu suurtagal tahay in uu ku quuso badda dheer ee adduunka u dhexaysa intiisa badan isagoon cidin wadin. arrintan wuxuu sheegay sargaalkani inay sababtay kadib uun markii wadamo badan oo adduunka ka mid ay taageero u muujiyeen dalka Turkiga iyo wax soo saarkiisa qaybta wasaaradda difaaca ee dalkaasi. waxaana uu sheegay inay dhisi doonaan maraakiib casri ah oo ka sii casrisan kuwan hadda ay sameeyeen iyo gawaadhi iyo diyaarado oo ay ugu talagaleen wasaaradda difaaca ee dalka ama qaranka dalkaasi Turkiga. waxaana sidoo kale uu sheegay sargaalkani inuu aad ugu mahadcelinayo dalka inuu aad ugu mahadcelinayo xarunta sargaalkani waxa uu sheegay inuu mahadcelinayo madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan oo uu sheegay inuu yahay madaxweyne ruuxi ah oo ku talagalay dalkan Turkiga inuu ka dhigo wadanka adduunka ugu sareeya uguna quwadda badan. toddobaadkii hore bay ahayd markii aan idinla wadaagay barnaamijkan kaga hadlaynay dalkaasi Turkiga oo ahaa baabuurta gaashaaman ee dalkaasi uu soo saaro iyo saanada military ayaa waxaa ka gatay kow wadamo aad u fara badan oo aanan halkan kusoo koobi karin oo ay qeyb ka yihiin dalal Afrika sida dalka Tunisia oo ku kharash gareeyay 150 milyan oo dollarka Mareykanka. dhanka kale dalka Kenya ayaa la sheegayaa inay ka dalbadeen baabuurta ama gawaadhida militariga ee casriga ah 180 gaadhi oo ay ku qoreen beeshka wasaaradda difaaca dalkaasi Kenya ay sheegtay inay ka dalbanayso dalkaasi Turkiga. imaaraadka carabta iyo wadamada carabta intooda badani ayaa ka adeegta saanada military dalkaasi Turkiga. Turkigu waxa uu caqabad ku noqday wax soo saarka dalka Ruushka qaybtiisa militariga iyo Mareykanka, taasi oo ay walaac adag ka muujiyeen labadaasi wadan in ay adag tahay dalkaasi Turkiga in la hor istaago wax soo saarkiisa military. dalka Turkiga ayaa dhawaan u ahayd markii uu soo saaray diyaaradaha drone oo duuliye lahayn kadibna uusan qabanaynin raadaalku. arrintaasina ay fajac iyo amakaan ku noqotay dalka Mareykanka iyo Ruushka oo isku wadaynay yihiin labada wadan ee adduunka ugu quwad badan. balse hadda waxa uu ku dhawaaqay Turkigu sidaan hore idinku sheegay inay soo saareen maraakiib aan duuliye lahayn, taasina aysan abid horay adduunka uga dhicin, ayna ku tusayso inay hormuud u yihiin qaybaha saanada military ee adduunka. dhawaan bay ahayd madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan markii uu ku dhawaaqay in dalka Turkigu uu u diyaar garoobayo inuu galo dhaqaalaha adduunka kaalinta 10aad oo uu la tartamo 10ka wadan ee adduunka ugu dhaqaalaha badan. wadamo badan oo islaam ayaa ku diirsaday wax soo saarka dalkaasi Turkiga. waxaa sidoo kale iyaguna miiska lacagta saaray oo u diyaar garoobaya markasta iyo goob kasta inay kasoo adeegtaan wadamada dhaca bariga Afrika. barnaamijkeeni intaas ku dhan yahay aan kusoo afmeerina haddii baraali ka noqdo si aad mar kale aad noola socoto muuqaalada iyo wararka habeen walba aan soo gelino waxaad samaysaa channelka saaxiib dhow nala noqo subscribe sar. wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. wada hadlaan